السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa janalka Cabdiraxiim Saciid. soo dhawow sida loo sameeyo Android application casharkiisii afraad. waxaan adiga xumahay inaanan beryahan soo gelin YouTube channelkayga casharo ku saabsan qaabka loo sameeyo jiray Android application oo ahaa cashar taxana inuu ahaa sidoo kalena inoo soconayay. waxaa xusid mudan in aan arday badan ay ka faa'iideysatay oo casharo badan arday badan ay soo weydiisay sidoo kale dad badan ay sameeyeen oo isku dayeen waa dhiirigelin mudan inaan runtii sii dardargeliyo. aad baan idinku mahadcelinayaa mar haddaad channelka saa ugu xidhan tihiin waa ilaahay mahadi. waan soo laabanay casharkana wuxuu noqon doonaa insha Allah kii afraad. kusoo dhawow waxaan kaga sheekayn doonaa run ahaantii waynu dhamaystiray applicationka samayntiisii qaabka loo sameeyo iyo sida taababka loo soo geliyaba casharadeenna hore ayaan kusoo qaadanay waynu dhamaynay saas ayuu ekaaday. waxaa su-aal aan idhi waa la soo degi karaa Play Store baa la geyn karaa meel kastana waad geyn kartaa oo wada soo degi kartaa. waa fursad aad u fiican oo lacag aad uga samayn karaysid. ugu horeyn saas ayuu u noqday laakiin bal waa inaynu la soo degnaa oo la soo degi karaa channelkeeni. casharadii hore fadlan dib u raaco haddii aadan casharadii hore ku xidhnayn casharkani fadlan lama jaan qaadi kartid. casharo 3 ah oo ka horeeyay ayaa jira oo aan soo geliyay channelka dhammaantood waxay ku jiraan channelka playlist gaar ah ayaan u sameeyay waadna ka heli kartaa insha Allahu taala waadna ka faa'iideysan doontaa saan rajeynayo. dashboardka ayaad tegaysaa si aad applicationkaagii u maamulatid. mar hore ayaan sheegnay casharadaas ayaan ku sheegnay waad la soo degi kartaa waad Play Store ka geyn kartaa Play Store ka geyn kartaa waxaad adeegsan kartaa scan QR code baa la dhaho waad scan gareyn karaysaa kadibna waad la soo degi karaysaa si yaro fudud ayaad la soo degi karaysaa. waa wax fudud waa waxaad fudud runtii oo qof kasta markuu galo wuu samayn karaa waa aad ayuu fududahay. halkaas ayaynu nagu imika kala soo degi karaynaa channelkeeni ama bal applicationkii aynu samaynay qaabka uu noqday halkan ayaynu kala soo degi karaynaa si aynu u tijaabino oo mobilkeena ugu tijaabino. waan la soo degaynaa mobilkeena ayaynu ku tijaabinaynaa bal waynuna eegi doonaa insha Allah qaabka uu noqdo iyo sida uu u ekaadaba. halkaas ayaad leedahay download ayaad oranaysaa wax weyn isku soo homaysid. applicationka magacaygan u bixiyay waana channelkayga kaliya ku xiriirsan yahay. marka waxaan iska sugaynaa 10 second halkaa waxaan u tirinayo waynu sugaynaa daqiiqadaha intuu noo dhammaynayo si aynu si fiican oo habboon ugu soo degno. waa kaas oo inoo soo degnaa imika download ayaan leenahay wuu download garanaya automatically waynu sugaynaa 3 second ilaa 2 second kala ku qoraya. downloadka markuu dhameeyo haddaynu eegi doonaa insha Allah. wuu soo degi doonaa insha Allah. intaa yar ayaan sugaynaa waxaanu ku leeyahay 5 minutes ayaad sugaysaa applicationkaaga wuuna kuu soo dhacayaa mobilka ayuuna inoo tegayaa. kadib waxaynu ku tijaabin doonaa insha Allah mobilka bal qaabka uu noqdo. automatically ayuu download garanayaa weli waan iska sugaynaa insha Allah degdeg mayno. waxaan rajeynayaa insha Allah inaad arki doontaan applicationkeenu oo aynu si fiican u samaynay. waxaad halkaa u jeedaa inuu leeyahay download garee applicationka ama save garee ama halkii ayaan ku geeyaa. waa si fiican magacayna ugu qoran baan hadhow ku baari doonaa insha Allah. okay aan leedahay halkaas uu ku socdaa applicationka inuu download gareeyo waa soo noqonaynaa intuu dirsameeyo insha Allah. kii ayaa inoo dhamaanaysa ama dhamaatayba hadda ayaan rajeynaynaa insha Allah inuu computerkeena toos ugu dhaco kadib mobilka ayaanu gashan doonaa waxaynu ku tijaabin doonaa mobilka insha Allah. waa kaad u jeedaan halkaas uu soo galay waa ka magacayga ku qoran waynu soo koobiyeynayaa si aan mobilka ugu shubo. mobilka ayaa igu xiriirsan computerka marka sababtaasaan soo dirsanaya halkan ayaad tegaysaa. waan isku soo noqonaynaa intaan mobilka ku shubayo. bal
aynu tijaabino applicationkii aynu kusoo shubnay mobilkeena aynu computer ahaan soo dirsanay iyo halkuu inoo tegi doono insha allah. magacaynu bixino waa kaas Cabdiraxiim Saciid ayuu ahaa. caadi ayaynu soo download garaysanayna anna resource-kaas ku dhufanaysaa waa taqaanaa sida loo download garayo ama install garayo ku sharax maayo waad fahmaysaa si fiican baad fahmaysaa insha allah. bal la soco insha allah iyo qaabka iyo halka ugu dambeeyo haddii ilaahay ka dhigo. waad u jeedaa inuu install garoobo iminka bal aynu nahno open iyo bal insha allah khayrka inuu inaga soo baxaan rajaynayna insha allahu tacaala iyo inuu inoo hagaagi doono haddii ilaahay ka dhigo. waad u jeedaa insha allah qaabkii la sameynay iyo wixiiba inuu u soo baxay insha allahu tacaala. waa ilaahay mahdi Cabdiraxiim Saciid aynu ku dhufanno oo ahaa bal channelkeena qaabkii aynu ku sameynay. permission buu ku weydiinayaa alowdhe hadhow insha allah si uusan dhib kuugu noqon. waad u jeedaa casharadii u soo wada geliyeen si automatically usoo gelayaan waa isagoo ah qaabkee isagoo ah playlist kasta qaybtii kasta gaar buu soo gelaya. markaan ku dhufto sida loo sameeyo Android application haddaan ku dhufto wuu isu saarayaa applicationada ama casharada ku jira si fiican lagu daawan karaa. gebi ahaantooda ku jiraan waa kuwaas part 3 haddaan ku dhufto casharku si fiican buu ciyaaraya playga. waad u jeedaa like iyo share wixiiba halka ku taala. bal haddaan ka noqdo oo aan tago qaybta kale ama taabka kale oo sameynay waa computer baha waa kaas waa computerka caadi ah wax kaga duwan ma garanayo. 8 + 8 = 16 marka sidii waa taas waad u jeedaa waan isticmaali karaa. it is very easy. marka insha allah waxaan rajaynayaa inaad fahamtay qaabka loo soo dejinayo iyo qaabka uu yahay. waa ka application-ka halkaas ugu yaala waad u jeedaa ma filaya haddaan kuu sawiro lafti ahaanteeda waa kaas halkaa ku yaala insha allah ka faa'iidayso. waad u diri kartaa asxaabtaada dad share haystid iyo dad meel kale haystid baad u diri kartaa waadna uga faa'iidayn kartaa haddii ilaahay ka dhigo. waxaan rajaynayaa inaad soo aragtay mobilkii iyo qaabkii aynu ugu shubnay isla markaana aynu ugu soo tijaabinay mobilka iyo qaabka ugu shaqeynayo application-keedii waxa aynu ka hadlaynaa. kadib bal haye kaligaa waad dirsatay asxaabtaada waad u diri karaysaa cid kastana waad u diri karaysaa. markaa way fududahay inaad meelo badan geysid oo aad cid badan la wadaagtid. waana wax kuu sahlaya inaad application-kaaga meelo badan geystid. haddana sidoo kale weli waxbaa inoo dhiman oo aynu rajaynaynaa inaynu helno taas oo ah application-keena inaanu ku daawacno meelo ka baxsan halkan aynu joogno iminka ee ah keligii ah. waa inaanu ku daawacnaa Play Store-ka waa inaanu ku daawacnaa meelaha lagala soo dego application-nada ee ii saamaxaya inaan ku helo lacag ku helo inaan caan noqdo ku helo Amazon inaan ku daabici karo inaan ku monetize gareyn karo lacag ka heli karo any money from your app lacag ka heli karo application-kayga waxaas oo dhan. qaybta ugu horeysa inuu soconayna ka bilaabayna waxa weeyaan si aynu ugu daawacno Google Play Store-ka. Google Play Store waxaynu ognahay inay tahay meesha ugu muhiimsan ee dadka badanaaba ay yaqaanaan ay wax kala soo degaan meel kale ma tagaysid. gebi ahaanba waxaynu joognaa markaynu hore ku dhex jirnaa waa dashboard-kaaga markaad tagtid waxaa ku soo baxaysaa khariirada noocaasa publish ayaad ku dhufanaysaa Google Play Store-kaaga hortiisa ayaad publish ku dhufanaysaa oo hoostiisa ah. waynu sugaynaa intuu soo kacayo waynu ku dhufanay qodobada laynooga baahan yahay ayaynu buuxinaynaa. ugu horeyn waxaa lagaga baahan yahay inaad buuxisid 10 qodob xagga waad ku aragtaa 10 qodob oo ka mid ah inaan buuxino ayaa laga rabaa. 10ka qodob haddaynu buuxino finish waad ujeedaan finish waad halka ku qoran finish taas lagu dhameynayaa. 10ka qodob haddaynu buuxino waxaa caqli gala in application-keeni uu markaas ku daabacmo Google Play Store. waayahay waynu ka jawaabi doonaa su'aalaha iyo waxaynu weydiiyo insha allah. guidelines
wuxuu ku weydiinayaa ama uu kula gelayaa policy aan ku lahayn si aad u akhrida halkaa ku dhufo click iyo dheh anigu read waan akhriyay imika uma baahni adigu akhri oo isku day inaad halkaas Google waad u jeedaa waan filayaa halkaa ay ku qoran tahay hiya ayaad ku dhufanaysaa waad baaraysaa waxa uu ka hadlayo insha Allah waa haddii aad ingiriisi isku fiican tahay fahmaysaan halkaa ka akhriso insha Allah ugu horreyn wuxuu yidhi waan akhriyay already weeye waad soo akhriday markaad goodliness-ka waxaa ku qorantay soo akhriday ayaad u baahan tahay wuxuu su'aal kale ku weydiiyay wuxuu yidhi application-kayga iyo description-kaygu waxay ku maaskaraysiin ama isleeyihiin screenshot-ka sawirada aan ka qaaday waxaan already waad ka wasaxaysaa adiga wax muhiim ay kuu fadhido ma jirto waa inaad wax oo dhan saa u saxdaa haddii kale ma gudbaysid inaad wasixin dhammaantood waana saxdaa waa inta lidka halaa ku yaala kadib waxaad oranaysaa continue oo hore ayaad uga soconaysaa waxaadna u gudbaysaa insha Allah qaybta xigta prepare graphics-kaaga hagaaji ayuu ku leeyahay graphics-kii waa kee graphics-ka sawirkaaga iconkiisa u sarreeya hagaaji application-ka sawir baa u sarreeya sawirkaa iska hagaaji attach image baad oranaysaa oo xaggaa ku qoran sawir baad soo qaadanaysaa kadibna waad soo gelinaysaa si aayar oo dhib yara ka kalena waad soo gelinaysaa waxaad leedahay attach image laakiin iska hubi application-ka waa inaad ka soo qaaday screenshot mobilka markaan kusoo tijaabinay screenshot baa laga qaadaa screenshot-ka haddaadan qaaday aqoon fadlan qof iga agdhow ama mobilka ka agdhow intuu isku dheh screenshot-kaas ayaad halkan soo gelinaysaa laakiin iminka screenshot-kii ayaan aniga computerkayga ku jirin sababtaas ayaan sawiro kale usoo gelinayaa daraaddeed sawiro kala duwan baan soo gelinayaa waa inaad 4 sawir baa laga baahan yahay waa inaad buuxiyaa 4 sawirba laakiin adiga screenshot waa inaad soo gelinaysaa kuwa screenshot-ka ah aad ka qaaday application-kaaga wali waxaan ku jiraa stoptii aad ugu gudbi lahayd inaad application-kaaga ku daabacdid Google Play Store kama daarayno inaynu samayno ama aynu ku daabacno Google Play Store kadib wuxuu kugu yidhi waa inay ka screenshot-ku size iska leeyihiin saxa kamana yaraadaan kamana weynaadaan marka screenshot-ku hadhow wuxuu ku yeelan doonaa insha Allah inaad sidiisa usoo geliso screenshot-kaa soo qaadid waxaynu oran doonaa I have a screenshot an icon hadda tartiibta qaybtii hore stoptii hore aad wax ka bedeshidna previous waa talaa ku taalay waad ku noqonaysaa wuxuu yiri write a description waa inaad raacaysaa qoraal bimacnaa waa inaad raacisaa description qeexitaan ah ka shaqeynaya channelkaaga ama waxaan application-kan aad samaysay waxa uu qabto iyo waxa uu ka shaqeyn doono waayo waan sii wadana halkaa waa inaysan 200 ka yaraan laakiin waan sii wadayaa horena u sii wadi doona insha Allah casharada halka ka baxay raacin doonaa insha Allah yaana maxaa la yiri 200 waa inaysan ka yaraan halkan waxaad ku qoraysaa short description wax yar qeexitaan yar wali ma dhammayn ma fadhiya halka wali ma dhammayn ha boqortooda maraysaa oo si wada doonaa insha Allah raalahaada halka oo si wadana ilaa 200 gaarsiino
waan sameynay imika already u tijaabaan ku wada wala iska buuxisaado halkana waa 80 description ku inuu san ka yaraan oo wax yar kaliya mahad wayga buuxsantay mahadsanid basaasi raacilka saas hadhow israacin doonta insha Allah ihafa description waan qabtay dad baahantahay inaad ku laabato halkii horena previous x ayaad oranaysaa beautiful stuff ayaad ku taabanaysaa waxaan maraynaa qaybta afraad imika wuxuuna zip code waxa la yiraahdo ama archive-ka you need to download all resource publication on Google Play ma u baahantahay inaad waxa soo dhan waa hawl kale insha Allah ونسي ودنا يدنا واحد سكرانيسا واحد سو دغيسا داونلود سيب وا سيب وي سكريشن هايكوت جرافيك انا بك waxa soo dhan app-ku application ku waa diyaar imika wax kulay la soo deg yelkeed laakiin mar hore application wala soo degnay yes I have all resource code waan haynaa waa iska sidaafi doonaa insha Allah laakiin wuu soo dejinayaa halka marka dambana waan hubin doonaa insha Allah mobilka ayaad igula hubin doontaan insha Allah waxay marayna qaybtii shanaad casharku dheeraan doona insha Allah sidaas inoo maraya imika you need a Google Play account ma u baahan tahay you need to pay a $25 halka inaga istaagta waa halkan hadaba wuxuu yiri ma u baahan tahay inaad $25 aad bixisid imika waad u baahan tahay waa qasab inaad bixisid 40 soo wada laga baahan yahay waa inaad halka booqataa marka hore waxaan u sharaxayaa cidda awoodda inay iska bixiso $25 $25 hadaad awoodid inaad iska bixisid waxaad samaysanaysaa oo aad u baahan tahay ku leeyahay inaad diyaarsatid ama aad samaysatid account baa inuu wadno registration fee fill your account details waad u baahan tahay inaad bixisid halkaas ayaad ku dhufanaysaa waadna gelaysaa laakiin waxaan aad uga xumahay wadanka aan joogo waxa ka xiran shirkadda loo yiraahdo Google ama shirkadda la Google AdSense that's all we know halka wad u jeedaa wax kulay daas waan ognahay sorry you not have access to speech ma awoodo anigu inaan galo laakiin fadlan gal u yaratay inaad samayn kartid waxyaalo badan oo noocaas ah fadlan gal oo ka faa'iideyso halkaas ma ku dhufanaysaa waa page baad samaysanaysaa sign up weeye haddii aadan fahmayn xagga hoose waxaa ku qoran learn more about creating developer account baro wax badan oo kamid ah sida loo sameeyo horumariyo ah waad ku dhufanaysaa insha Allah iyadana waxaan rajeynayaa inaad in badan oo idin kamid ah ay fahmi doonto insha Allah taala waan rajeyn doonaa inaad ka faa'iideysan doontaan bal anigu inta ii faa'iido ah ama ii ogol yahay wadankan jooga ayaan sii galayaa waxaan ku dhuftay imika qaybtaas iyadana ama bar waxay la saarto ama akoonka iyo qaybta iyo wuxuu saaro insha Allah share your referral and get link and get money get $3 for you and your boyfriend and your friend but each friend registered by wuxuu noo sharaxayaa waa wax isku xiran waa referral program waa wax isku xiran oo qof baa lacag bixinaya qof la soo degaa isna $3 ka qaadaysa oo program noocaas ah free way waana soo kartaa zori waa app-kii sarkii aad ka soo kartaa laakiin wuxuu u jeedaa un xagan inaad samaysan kartid bimacnaa account-kaas aad samaysan kartid waxaan rajeynayaa inaad insha Allah aad fahmi doontid balan raahdo I have an account afartan saacadood ay kugu qaadanaysaa inaad application-kaaga la daabaco la register gareeyo oo la soo dhiso marka iyadana nafteedu waa hawl ku sugan halka ka sii wadid casharka uu dheeraadeen rajeenaya casharka dambeeya insha Allah taala ayaan ku kulmi doonaa si aynu u dhameystiro 6 ama 6 ilaa 10 inoo dhiban insha Allah si aynu dhameystiro afarta kan ugu harayeen dhameystiro doonaa bardhow insha Allah casharka xiga aad ma santii wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haylaawna share galaysid soo kara subscribe ku codid ku qodobada channelka dadku cusub tahay waa Cabdiraxiim Saciid oo ka tagaya sidaas iyo nabadgeliyo